السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقال كله كن يسقال بقول يتضبط يسقال كي أيا تاريخيا كي مريكان كها اللي جري كريستوفر لاش أو شيء كن سقال بقول صدق يلا بدي دنتينا كن سقال بقول يسقاش أفرتي وحاو قريبوك عام بحي أو لده the culture of narcissism أفعال وحالها ثقافة نرجسية أما دقنك نرجسيga waa maxay waa qofku in uu jeclaado oo ku mamanaado oo ku dhaganaado naftiisa oo aad u jeclaado wax walba ka hormariyo aaminana in uu wax kasta oo adduunka jira ka fiican yahay lash markii la weydiiyay sababta horta inta sababta la weydiinin ayaa wuxuu yiri mujtamaca Mareykanka asoo markaas ku noolaa wuxuu yiri waxa dib weyn ku keeni doonta oo mustaqbalkooda laga yaabo inay saameyn xun ay ku keento ثقافة إسلويني ده يقفك إن لبونبونيو أيا نبغى كيسان دوت لاش وحال ويدي سببتها أرنتها سكينيسا وحو يري والله بأرمود تكوبات وحاوي أيو يري وبوقتا كشاكيسا هرمرين تقفك تطوير الذات وهي بقفك إنه أسوي يسهر مريو بوقتاس waxay ku dhahayaan adaa ugu wanaagsan adaa ugu aqli badan adaa ugu awood badan libaax iska dhig neefso indhaha isku xiro indhaha isku qabo oo aamin inaad libaax tahay libaaxna ma noqonaysid shabeelle ma noqonaysid qof aadan oo caadi ah tahay laakiin waxay ka buuxinayaan isla weyni iyo anaaniya iyo inaad wax walba adiga tahay iyo in dadka dhan ka fiican tahay iyo waxyaabahaas oo ayay ka buuxinayaan marka qaar shakhsi kaliya ma aha xitaa ummaduhu qaar ayaa isla weyn oo ummadaha kale iskala weyn oo arka inay ka fiican yihiin ka wanaagsan yihiin annaga og in ummad walba meel ay ku fiican tahay tusaale hadda maanta Mareykanka oo ugu awood badan adduunka maanta dhaqaale iyo ciidan wax kasta wadan taariikh lama aha waa wadan 200 sano 200 wax yar jiro waaye taariikh ma laha sooyaal ma laha waa asaganta marka Ciraaq tagay boobay taariikhdii sooyaalkii Mesopotamia Ciraaqiinta boobay marka wadan meel ku fiican yahay meel kale uu ku xun yahay dadkuna waa sidaas oo kale haduu qofku meel ku fiican yahay meel kale uu ku xun yahay diintuna waa tadahadaba de qofku tawaaduc iyo inuu dhulka isdhigay iyo inuu naftiisa uusan u arkin wax weyn oo subaystaara inuu isu arkin diintu waa tay nagu dhirigeliso waxa la yaabaa in uu doorashadii markii Mareykanka 2016 la galay ayaa waxa hadlay ninkii la jiray Trump ee madaxweynaha Mareykanka noqday ayaa wuxuu yiri tawaaduca iyo isdhigida iyo wuxuu yiri nafta in aan aad loo aaminin wuxuu waa dhaqanka culimada iyo dadka kaniisadaha masaajidda ku jira laakiin ma aha dadka lacagta leh ee anoo kala sababtoo ah waxaan dadka kala weyn ka fiican ka wanaagsan hadaa dadka wanaagsan lacag ma sameeyeen qofkii inuu lacag sameeyo ma waxay ku tusinaysaa inuu dadka wanaagsan yahay ma ku tusinayso waxay ku tusinaysaa in uu dadka aqli badan yahay ma ku tusinayso rizqiga ilaahay ayaa qaybiyay anaka muslimiin ahaan aaminsannahay rizqiga ilaahay ayaa qaybiyay rizqiga lacag kaliya ma aha rizqiga waa caafimaad waa awlaad waa horumar waa aqli waa garaad waa qurux waa dadnimo waa naxariis waxaas waa rizqiga ilaahay qaybiyay hantida kaliya ma aha arinta koobaad marka wuxuu yiri lash waa buugta nafta aadanaha inay horumariyaan ka sheekeeya oo qofkii ka buuxinaya isla weyni faaruq oo waxba ahayn oo qofkii ka dhigaya inuu dadka la nool ama hareerihiisa ku nool ama asagoo kale oo u arko daliita oo waxba ahayn taas waa qodob kale waxa la yiri wuxuu yiri waa warbaahinta waxay soo deynayaan nin aha ka soo qaadadka feertama ama ciyaartooy ama nin heesa oo fanaan ah waxay dhahayaan waa ninkii ugu wanaagsanaa waa ninkii ugu qiimaha badnaa waa ninkii ugu fiicnaa marka qaar waxay dhahay taariikhda waa dadka ugu wanaagsan galbeed Mareykanka iyo galbeedku marka ay fiirinayaan wanaagna waxay soo arkaan inuu ay yihiin xuduntii adduunka inay yihiin bay soo arkaan oo fanaan kooda ahayn waxba ma aha qoraan kooda ahayn wax ma aha ciyaartooy aan kooda ahayn wax ma soo ahaan maanta ninka Liverpool ciyaara Liverpool taageero ka hadlay macnaha Mohamed Salah haddii uu hala maanta nin European waxa laga yaabaa inuu laacibka adduunka qaadan lahaa ayay u badan tahay laakiin maanta maadaama uu ka imanayo bari uu ka imanayo islaam iyo carab ka imanayo way adagtay inuu qaato marka iyagu waxay u arkaan qofka aan iyaga ahayn ama dhaqankooda aaminsanayn ama thaqaafadooda aan cabsanayn way adagtay inuu wax ku guuleysto aad iyo aad bay adagtay marka wuxuu leeyahay meediyahaas ayaa wuxuu dadkii wax ahaa ama bulshada ka dhex muuqday wuxuu ka buuxinayaa in uu dhaho waxaa tihiin dadka kali ah ama ugu wanaagsan wuxuu soo qaadanayaa ninkii feeryaanka ahaa Maxamed Cali Kalaay
ayaa intuu istaagay wuxuu yidhi waxaan ahay qofka ugu weyn adduunka ugu awooda badan ugu fiican waagaas toddobaatameeyadii way adkeyd weli dhaqankaas ma gelin anaaniyada noocaasa mujtamacaadka kulli ma gelin marka dadkii xilligaa noolaa way la yaabeen marka laash wuxuu leeyahay waa bilowga thaqaafo iyo dhaqan uu qofku isu arkayo inuu yahay ka ugu wanaagsan ka ugu fiican ka ugu garaad wanaagsan mid dadka oo dhan ka sarreeya innaga haddaan nahay islaam diinteenu waxay noo sheegaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man tawaadaca lilaahi rafaca أو كما قال عليه الصلاة والسلام قفك إلهي إسو تواضعه أو ضدك كل رقم وناج أو ضدك إسو النجلادة أو أنس لوينان أو أنبور إس صار أو أنس بونبون إلهي قرب وقاضية قفك وفاروق هذا قف إسوينينية أو متبع إسكالوين أو ضدك إسكالوين oo dadkiisii ka fogaanaya oo u arka dadkan wax xasharaad yar meelaha maraya yani qofkaas waa zero gudaha ayuu ka yahay faaruq xitaa muuqaal kore hadduu u muuqdo qof wanaagsan oo aqoonyahana oo shidan oo bila ka dhacday ama lacag leh ama hanti ah ama madax hadduu u muuqdo yani gudaha ayuu qofkaa faaruq yahay laanna qof fi nihaaya waxaa tahay insaan calooshaada waxaa ka buuxda saxari iyo kaadi ugu dambeynna waad dhimanaysaa waxaa jirkaagan cunaya أبور يوح التمرير أيها عنا يحمل إسكما قبل قرتي ولماذا تكبر؟ محاد إسلو وينان محاد سبون بونين محاد وحسجا دقي محاد أذنها إسجا سرسي لسا أنت سانكسو كوبينا وما سنتين